faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dil argagax leh oo ka dhacay magaalada Gabiley. Dilka ayaa loo geystay Allah u naxariistay marxuum lagu magacaabi jiray Heewo Faarax waxaana la sheegay in abaaro 7 habeenimo oo saqdhaxa ah dilkiisa la fuliyay isla markaana loo adeegsaday mindi sida ay wararku ay tilmaamayaan. Gacan ku dhiglihii dilka geystay ayaa la tilmaamay inuu goobtu ka baxsaday balse ciidanka booliiska ee magaalada Gabiley oo baaritaan ay sameeyeen ayaa ugu dambeyn gacanta ku soo dhigay ninka dilka fuliyay oo baxsad ahaa waxaana la tilmaamay in la geeyay saldhigaasi halkaasi loogu sameeyo baaritaan la xiriira sababihii ka dambeeyay dilkaasi. wararka soo baxaya iyo sidoo kale waxay tilmaamayaan marxuumka la dilay iyo sidoo kale gacan ku dhiglihii dilka geystay inuu soo kala dhaxqalay khilaaf taasina ay sababtay in uu dilka u dhaco. meedka marxuumka Allah u naxariistay ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley. ma jiro xogo kale oo faahfaahsan oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee magaalada Gabiley balse wixii xogay macluumaad dheeraad ah ay ku soo kordho muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil familkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free